maanta waxaan joogaa guriga lamaanaha qarniga farxiyo tabakal iyo sidoo kale liibaan. farxiya waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee qaba baahiyaha gaarka laakiin maanta waxay u dabaaldegaysaa 12 sano ka hor marka ay guursatay maanta oo kale. waxaan idinka hayaa sheeko cajiib ah. waa galab caraaw adceedu ay sii galbanayso. waxa uu doonayaa in saacadaha ugu dambeeya ee maanta oo ku beegan 12 sano ka hor maanta oo kale markii loo gurigeeyay xaaskiisa Farxiya in uu u sameeyo xaflad lama filaan ah. ma doonayo Liibaan in uu indhaha ka furo xaaskiisa inta uu ka geenayo goob gaar ah oo loogu talagalay xafladda sanad guradoodii 12aad ee aqalgalkooda. indhaha marka kala laga furo ayaa arki doontaa waxa aan meeshan kugu diyaariyay ya soo dhow عادي ما waxaan asmayse waa sanad guuradii 12aad xafladii guurkeena ka soo wareegtay marka waxaan u talagalay in aan surprise kaaga dhigo oo aan tuso in ay macnaha mudan tahay adiga aad mudan tahay macnaha in sidaan lagu sharfo ma sha Allah aad u maasantahay xaji. Farxiyo Tabakal waxa ay qabtaa baahi gaar ah waxaana ay shil baabuur ay ku weysay lugteeda bidix balse maanta waxaa loo maamuusay sidii boqoradii oo kale. jawi xasiloon ubaxyo casaan ah iyo buufin lagu xardhay xabiibi ayaa haraysay xafladeeda lama filaanka ah. haddaba goormee ayuu ku dhacay dhibkan Farxiyo Tabakal? dhibkan wuxuu ugu dhacay anigoo yar oo 5 sano jir ah wuxuuna ugu dhacay magaalada Baydhabo gobolka Baay. gaari ayaa jiray anoo yar shilka waa yaraysa hore kugu sheegay guri laamiga ku yaalo ayaan deganeen laamiga agtiis ku yaalo gurigaas ka soo baxay anoo yar ciyaal ahayn oo asdoo bursaneenay sidoo gaari ugu jeeray markoo gaariga ay jiray labada lugood ayuu iga maray hal lug kaliya iguma oo samarin lug meeshii ayay ku jabtay lugta kalena meesha ayay ku burburtay markaas la ajriga isbitaal la carray isbitaal la geeyay lug waa la ii badbaadiyay tan kalena waa la badbaadin waayay ma sanad haji hada ma sastahay lamaanaha qarniga Farxiyo iyo Liibaan waxa ay wada socdeen 2 sano iyo 8 bilood. waayo kala duwan iyo waqtiyo adag ayay soo wada mareen lamaanahan. Liibaan waxa uu ahaa injineer caawiya dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee naafaha ka ah lugaha iyo sidoo kale gacmaha. goormee ayay isbarteen Liibaan iyo Farxiya? waxaan isbaranay 14 July 2005 waxaan isku baranay xarunta dhaqangelinta naafada ururka bisha cas ee Soomaaliyeed ayadoo markaas adeeg u soo doonatay. adeegaas oo aan kamid ahay injineerada meesha ka shaqeeya oo dadka baahiyaha gaarka ah u sameeya adeegyada ay u baahan yihiin noocyadooda kala duwan. xulashada guurka ayaa ah go'aan waqti kooban aan lagu gaari karin waana ay adag tahay in aad xulato qofka ku haboon caruurtaada iyo sidoo kale noloshaada. Liibaan waxa kaga xushtay qofka kaliya wuxuu ahaay lug aan ku qanacsanahay horta marka koowaad ii sameeyo wuxuu ahaay dhakhtarka aniga u baahanahay maadada koowaad tan labaadna wuxuu ahaay ninka kaliya shuruudihii aan aniga niyada ku hayo dhan ii oofiyay. ani Farxiyo waxaan ku doortay 2 arrimood ayadoo ah gabar baahiyo gaar ah leh iyo ayadoo Ilaahay siiyay hibo iyo karti ay u dhalatay. marka waxaan meeshaas ka arkayay 12 sano ka hor xataa markii lagu daro 3 sano aan wada soconay waxaan dhihi karaa muddo 15 sano ka hor waxaan Farxiyo ka dhex argay kartida hadda ee la soo baxday ee leedahay. waxaan isqeynaya waa ku jecelahay Farxiyo Tabakal ma ahan oo kaliya xaas u dabaaldegaysa sanad guradeedii 12aad ee aqalgalkeeda balse waa hooyo haysata 5 caruur ah. waxa ay ku faraxsan tahay nolosha gurigeeda iyo qoyskeeda. gabadheed cadda macaanto hoobiya farxadda nolosha kaliya ma ahan in aad haysato hanti fara badan laakiin degnaanshaha iyo farxadda nolosha waxa ay ku jirtaa in aad ku qanacdo waxaad haysato. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Rashka Muqdisho Cable TV magaalada Muqdisho.